بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش أي دقيقتاش قيمها قدرت مدن إذا فهد الدنيا إن قال السعودة. الكاني والصومالي فويس النرويج ما عاد كصومالية النرويج وعد على وقبرتين. برنامج الله قول سيوقرات كقف كقوس كي قرنك. وحين كجرنا مالنتي وقدم بيسي عد بحنت عمل دورشين كدلك النرويج. الكاسو عني ذيك صوت ديارنا برنامج كلا دوان أو صوت إحنا تن يبي لو جد بشيء أغسطس أو هاي حلقي لقاعدة ولا لها دورشين ك. guud ahaan dalka Norway ayaa maanta oo Isniin ah kuna beegay 8 bisha 9aad 2025 waxaa looga wada dareeray doorashadii dadweynaha waxaana lagu soo dooran doonaa 169 xildhibaan ee fadhiisan doona golaha baarlamaanka dalkani kuwa oo ka arrin doona ayaha dalka Norway 4 sano ee nagu soo fooleh ayay doorashooyinkan oo ahaa kuwii ugu adkaa ee waayada ka dhaca Norway baratan adagna ay xisbiyadu ka muujeen ayay xisbiyada midigta waxa ay muujeen dadaal dheeri ah oo ay doonayaan in ay kula bartamaan xisbiyada bidixda oo 4 sano ee la soo dhaafay dalka Norway ka arriminayay xisbiyada bidixda ayaa marka loo eego doorashooyinka iyo ololihii doorasho ee dhacay waxa ay galeen kaalinta koowaad marka loo eego dhanka social media iyo warbaahinta iyo maalgelinta adag ee ay sameeyeen waxaana lagu soo warramayaa daraasadii ugu dambeysay ee la sameeyay maanta oo Isniina oo ku beegan 8 bisha 9aad 2025 oo ah maalintii loo dareerayo doorashada muujisay in xisbiga FRP ee midigta fog uu yahay xisbigii ugu adkaa ee juhdiga iyo dadaalka ugu badan iyo maalka ugu badan ku bixiyay doorashadan iyo baratankeeda waxaana la sheegayaa in dhanka social media iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta ay xisbigan ku bixiyeen adduun lacageed oo aad u badan si taalamidana juhdi iyo dadaal dheeri ah oo ay xisbiyada kala bixin ay ku bixiyeen taa oo keentay in ay kor u soo kacaan kuna baratamaan maanta in ay u tartamaan xilka ra'iisul wasaaraha dalka Norway waxaana lagu soo warramayaa marka loo eego kaalinta labaad dadaalka iyo juhdiga badan iyo abaabulka badan ee ololaha doorashooyinka sanadkan xisbiga bixiyay ee soo galay kaalinta labaad in uu yahay xisbiga cagaaran ama MDG ka oo iyaguna muujiyay dadaal iyo baratan adag marka loo eego xisbiyada kale si taalamida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay uga duwaneed handadaada badan iyo cagajugleen badan oo loo geystay siyaasiyiinta kala duwan iyo musharaxiinta kala duwan ka oo gaartay culeyskeeda ilaa iyo ra'iisul wasaaraha dalka ka arrimiyo Jonas Støre ka oo isagu qudhiisu sheegay in ay arintaasi tahay mid aad u xoogaysanaysa doorashooyinka marka loo eego doorashooyinka hore waxa ayna hay'adaha ammaanka qaybahooda kala duwan sheegayaan in ay baaritaan xoogan iyo dabagal xoogan ku hayaan kooxa iyo group ay ku tuhmayaan in ay ka dambeeyeen ama ku lug lahaayeen handadaadihii isdaba joogga ahaa ee loo geysanayay siyaasiyiinta iyo musharaxiinta kala duwan ee xisbiyada kale ra'iisul wasaaraha dalka Norway ee hogaaminaya 4 sano ee la soo dhaafay haddana u hanqal taagaya in uu mar kale ku soo laabto kursiga ayaa isaga qudhiisu sheegay in ay soo gaareen handadaadaha noocaas ah waxa uuna sheegay in sidoo kalena la sameeyay dhaqaale badan lagu bixiyay ayna jiraan kooxo badan oo dhaqaale iyo waliba saameyn badan leh kuwa oo isku dayaya in ay waxyeelayaan sumcadda xisbigiisa waxa uuna sheegay in meelaha qaar fiidiyoyo laga sameeyay lagu sheegayo in ra'iisul wasaare Støre uu yahay beenaale Norwayna uu ku wada hog aad u weyn waxa uuna sheegay in taasi ay tahay wax aan la qaadan karin waxayna hay'adaha ammaanka ku warramayaan in ay ku daba jiraan dad lagu tuhmayo in ay falalkaasi ka dambeeyay Norway ayaa waxa ay u kicitanta maanta doorashadii ugu adkeyd ee waayadan dhacda waxaana lagu soo dooranayaa 169 xildhibaan ee fadhiisan doonta golaha baarlamaanka dalka Norway deegaanada galbeedka Norway ayaa iyagu soo saari doona ilaa iyo 20 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha baarlamaanka dalka Norway guud ahaan 19 deegaan doorasho ee dalka Norway ayaa xildhibaanada ka soo bixi doona marka la isku daro waxa ay noqon doonaan 169 xildhibaan kuwa oo fadhiisan doona golaha looga aramiyo dalka Norway midigta iyo bidixda xisbiyada u qaybsan ayaa baratankoodu yahay mid aad u adag waxa ayna sanadkan muujiyeen baratan ka adag kuwii hore iyo xamaasad iyo xiise ka adag kuwii hore waxa la saadaalinayaa qiyaasihii ugu dambeeyay in ay aad isaga dhawaayeen labada kooxood ama labada xisbi ee loo qaybiyo midigta iyo bidixda waxaana lagu soo warramayaa in natiijada kama dambaysta ah ee maanta lagu ogaan doono sidee u aragtaa doorashada iyo ka qayb qaadashadeeda wallahi waxa waaye waxaan u arkaa wax qurux badan qofka inuu aad iyo aad wax u doorto waa muhiim muhiim u tahay waxay ka hadlaysaa dimuqraadnimada teda kale waxaa ogtihiin waddankan xaalkiisa waxaa anaga noodanahay aan ogaano codkeena inaan isticmaalo si uu noo badbaadiyo ilmahena u badbaadiyo danaheena u matalo marka waxaan kula talinaa qof walba inuu codeeyo soomaalida beergan waxaa ugu baaqaa inay doorashada kasoo qayb galaan waana muhiim inaad doorashada ay maadid codkaaga bixisid waxaa la hadlaa walaalahayna Soomaalida ee Norway ku nool kulligoodba waxaan rajeynaynaa codkooda inay dhigtaan
kala fariisan codkaada guriga niilo maanta والله وحدي عواي sax okay maxaa kula talinaysaa Soomaalida والله وإني عضيان والله waxaa kula talin badan ay ka soo qaybqaadan doorashada Norway khaasatan magaalada Bergen dadka codayaan dhammaan Soomaalida reer Bergen waa salaama waxaa leeyahay dadka dhalashada haysta waa inay u codeeyaan dadka anaga noo muhiim ah oo maanta wax ka faa'iideeno soo yaa dad badan oo waxa arki dhahayo ma codeynaan maxaa ka codeynaa waa muhiim waa wadanka anaga joogno ilmaha ku dhalnay soo ina ilmaheena u daneeno anagana isku daneeno kuwa anagana taageersan ina u codeeno doorashada ayaa loo dareeray saaka 9kii subaxnimo waxa ayna socon doontaa ilaa iyo 9ka fiidnimo ee caawa waxaana lagu ogaan doonaa cidda hogaamin doonta Norway 4 sano ee soo socota siyaasadda iyo wixii ku soo kordha waxaad kala socon doontaan Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana barnaamijyada doorashooyinka si taxana idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine